wuxuu sheegay in Ethiopia xalkeeda uusan hayn mid military ma jiro ayuu loolan military oo Ethiopia ka dhici kara sida daraadeedna ma jiro ayuu guul lagu gaari karo sidaas Ethiopia waxay cagta saartay wadadii burburka isla markaana dalku waxa uu haatan u jeestay inuu meel xun dadkiisuna waxay ku nool yihiin buu hubanti la'aan isla markaana waxa ay u qalmi lahaayeen sidan si ka wanaagsan waxa uu sheegay in ay dawladda dalkiisu ay ka dursugi doonto waxa ay falaan hogaamiyaasha Ethiopiaanku balse waxa uu ku cagajugleeyay in aan wali laga qaadan ayuu yiri talaabo adag hogaamiyaasha iska soo horjeeda wuxuuna ka digay inaysan taasi macnaheedu aysan ahayn in wixii lagu sameeyay Eritrea hogaamiyaasheeda iyo qaar ka mid ah xisbiyadaasi ayaan lagu sameeyay karin ayuu yiri Ethiopia wuxuuna sheegay in wali arrin wax kasta ay miiska saaran yihiin xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka wuxuu sidoo kale ka hadlay qaaradda Afrika iyo arrimaha horumarka ay sameynayso wuxuu sidoo kale soo dhaweeyay in Mareykanka uu hub ka iibiyo dalka Nigeria oo loo saxeexay 10 huba wuxuuna sheegay in dalalka Sahara ka hooseeya qaaradda Afrika oo dhan ay doonayaan inay cilaaqad wanaagsan la yeeshaan deegaanka Mareykanka dawladdiisa ayuu ku tilmaamay mid doonaysa in ay sharaftii ay ku lahayd qaaradda ay soo celiso mar uu ka hadlayay sababta uga bilaabay safarkiisa Kenya wuxuu sheegay in Kenya u noqon doonto u ahayd ayuu halbeega ku aadan geeska Afrika taasoo ka dhigan warbixinta warfadhi media hore u sheegtay ay doonayso Mareykanku iyo galbeedku inay Kenya ay baqti afuufaan taasoo horey ay u qaamaysay dawladda dalka Shiine kadib markii Ethiopia oo iyadu u qaybsamaha arrimaha geeska Afrika Mareykanka u ahayd ay jilba joogsatay haatan wuxuu sheegay inuu u sii jeedo magaalada Dakar ee xarunta dalka Senegal asagoo sheegay in dhanka kale bilaabi doonaan wajiga labaad ee safarka galbeedka Afrika Blinken sidoo kale wuxuu sheegay in dalka Nigeria dhinaca arrimaha dagaalka uu kula jiro kooxaha argagixisada ay soo hagaagayso dawladdan ay gacanta saran yeelanayso kooxda Boko Haramna la baacsanayo balse waxa uu sheegay inuu ka xun yahay in dad mudaharaad ay magaalada ugu weyn dalkaasi Lagos si xun loola dhaqmay